waa mid ka mid ah dhacdooyinka mugada badan ee naadirka in laga dhex maqlo bulsho haysata diinta islaamka. Sheekadan waa tacsida wiil hooyadiis sabab u noqday in uu dunida dhaafiyo kadib markii ay ku murmeen inay u iibiso dhul. Subaxan waa murugo weyn, waxay ehelada iyo asxaabta u diyaar garoobayaan aaska hooyo Salaado Suudi oo wiilkeeda Cabdulqaadir Cadaan Yalaxow uu ku midiyay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir, taas oo sababtay in ay dunida dhaafto. Shabeelle TV ayaa gaartay halka uu yaalo meydka marxuumad hooyo Salaado oo loo diyaar garoobayo aaskeeda, waxaana qaar ka mid ah ehelada ayna la wadaageen dhacdada iyo sidoo kale geerida wiilka hooyadiis dilay Cabdulqaadir Cadaan Yalaxow oo u geeriyooday rasaas lagu dhuftay xilli uu doonayay in uu baxsado markii uu geystay falka kadib. anigoo magacaygu uu yahay Aadan Cumar Maalin, gabadha marxuumadda hoo dhimatana wiilkeeda uu dilay. alxamdulilaahi rabbil caalamiin, isagana hadda uu dhintay. uu rabay oo hooyadiisa ay leedahay guriga iiga dadkay waa ku dilaa. wiil la dhashay uu dhaawacay, toorey wadnaha ka geliyay, waxba ma gaari, waa fiican yahay alxamdulilah. isbitaalku yaallaa. wiil kaloo daris ahaa sidoo kale isna dhaawac u yahay, isbitaalku yaallaa. in askarigii waa dhaawacay. askariga markuu tooreyda ku dhuftay xabad lugta loogu dhuftay. xabadda markii lugta loogu dhuftay oo haddana gacanta kula soo booday tooreyda, markaas gacanta xabad loogu dhuftay ilaa askariga naftiisa u badbaadsanayay. anaha alxamdulilah rabbil caalamiin. haddana waxaan diyaar u nahay meydkii inaan aasno insha allahu. masaajidkaan sugaynaa janaasada inaan ku dukanno hadda oo aan meydkii aan qaadno hadduu alla idmo. wiilkii waa dhintay. wiilkii hooyadiis dilay isagana waa dhintay. xalay 4 saac u dhintay. maxaa kuma dhicin, waa xabad lugta loogu dhuftay iyo gacanta xabad loogu dhuftay keliya oo ninka askariga isku badbaadinaya, naftiisa ku badbaadsanaya qorigiisa iyo macnaha xabad loogu dhuftay. ma dooriye waaba shaqadiisa ahayd, waaba isticmaali jiray. dhacdooyinka noocan oo kala ah waa naadir. qaar ka mid ah bulshada ayaa waxay aaminsan yihiin inay sabab u tahay maandooriyaasha khatarta ah noociisa oo ay isticmaalaan qaar ka mid ah dhalinyarada maanta. laakiin wax sahlan ma ahan in wiil dunida dhaafiyo hooyadiis oo muddo 9 bil iyo sidoo kale sug caloosha ku soo siday. Cabdinaasir Socdaal, raadiyaha iyo telefishinka Shabeelle, magaalada Muqdisho. ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking.